السلام عليكم داوديال ودولموك جنرال وادوغا براتين inuu halkan idinka soo gudbiyo wararka adduunka kooda ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan daawadayaal hadaba waxaanu idin soo gudbinaynaa maanta oo isniina taariikhduna tahay 20 bisha afraad 2020 waxaa dalka Turkiga laga furay magaalada Istanbul isbitaal ay dunida dhami la yaabtay kaasoo si qarsoodi ah loo dhisay oo aan horena dunida aan ula socon haddaba isbitaalkan oo magaciisa la yiraahdo Basak Sahir City Hospital ayaa waxaa maanta oo isniina xariga ka jira madaxweynaha dalkaasi Tayyip Recep Erdogan mar uu ka hadlayay furitaankii xafladii lagu qabtay gudaha isbitaalka ayaa waxa uu sheegay inuu isbitaalkan yahay isbitaal wax badan u qabanaya guud ahaan dalka gaar ahaan dadka Turkiga isagoo dunida maanta uu ku habsaday cudurka COVID-19 kaasoo farabaan ku haya dhammaan dunida ayaa waxa haddana Turkiga la sheegaya in dadka uu ku dhacay cudurkaasi ay gaarayaan 86,000 qof waxa uu madaxweynaha uu sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeriya la qabto si aan cudurku ugu sii fidin gudaha dalka isaga oo yiri maahan inaan u baahno caawimaad nooga timaado dibadda maruu la hadlay dhakhaatiirta iyo saynisyahanada iyo dhammaan injineerada dhisay isbitaalkaas oo si wada jir ugu sugnaa goobtaasi isbitaalkan uu dhameystiran yihiin dhammaan qalabka loogu talagalay isbitaalada waaweyn ee casriga ayaa waxa isaga u dheer waxa yaala 5,000 oo ventilator amaba 5,000 oo qalabka hawada ah kaasoo ka dhigaysa inuu yahay isbitaalkan mid aad u qalabeysan una tayeysan dawladda Turkigana ka dhigaya dalka kaliya ugu horeeyay soo bandhiga awoodda intaas leeg ee gaaraysa 5,000 oo ventilatorada oo ah waxa kaliya ee dunida aadka hadda ugu baahan yihiin ahna waxa qalabka lagu xiro qofka marka ay hawadu ama naqasku uu ku dhago isbitaalkan ayaa waxa la sheegay inuu qaadi doono in ka badan 3,000 oo sariirood isbitaalkan oo mid u dhisan si casriya dhamaana u dhameystiran yihiin qalabyada kala duwan ee loogu talagalay isbitaalka daawadayaal waa Dolmog Channel oo idin leh tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan oo xiiso leh والسلام عليكم.